haween wanaagsan weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeena xiriirka ah oo idinku soo dayi jirnay telefishinka Universal iyo Roma. barnaamijkeena caaw wuxuu ku saabsan yahay taariikhda farta afka Soomaaliga. waxaan wax ku weydiinay Professor Cabdalla Cumar Mansuur. Professor Cabdalla Cumar Mansuur wuxuu barak ahaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed 1980 ilaa 1990. haddana wuxuu barak yahay jaamacadda ku taal dalka Talyaaniga ee Roma, Università degli Studi Roma 3. Professor Cabdalla Cumar Mansuur wuxuu ku takhasusay cilmiga afafka iyo dhaqanka. wuxuuna qoray buug aad u badan oo fara badan oo la xiriira cilmiga afafka. Professor markii hore soo dhaw telefishinka Universal. mahadsantahay Roberto. Professor adiga soo koobay waxaa noo sheegtaa taariikhda farta afka Soomaaliga. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال في عن روبرتو هدي أن سوكوب وحن أقيبين كرا تاريخ ذا فرت أف سوماليا وحي سومرت اللي مرحلة ذو مرحلة ذو الرئيس وحن لي كرنا مداد وفق وعمر كي فرع عربيد أي سو قارت أي سوماليا وعمر كي دين تأي تمد مارتجيس كأفريقيا سوماليا سيو برتو قرآنك waxaa daruuri ahayd in farcabeed ay barato marka waxaa la soo saaray muddo aan dhaweyn higaada farcabeed waxaa laga dhigay af Soomaali waa la af Soomaaliya waxaa la yiri alif la kordho alif la hoos dhawo alif la godo iyo wax la mid ah oo dadkeeni maartay hore aan ku soo wada baranay Soomaaliya waqooyi iyo koonfur dhinac walba marka higaadaas waxaa loo keenay waxay si u fududeyso oo loo barto quraanka maartay qofka aan af carbeedka aan ka siin wax weynay ahayd maartay ninka soo saareen waxa lagu sheegay inuu ahaa Yuusuf al-Kawnayn dadka qaarkood ay u yaqaanaan oo barxade marka laakiin daliil cad lama hayo in ninkaas uu soo saaray oral tradition saasan ka ayna ninkaasna wuxuu noolaa muddo haatan laga joogo 8 qarni oo kale qiyaas ahaan talabada labaad waxa way qarnigii 18aad ama 19aad ayaa East Africa ama Afrikada bari waxa ka bilaabantay in la isku dayo in lagu qoro farta af carbeedka qolo walba afkeeda maxalliga waxaana horseed u ahaa qolada ku hadasha afka Soomaaliga waxay ku qoreen suugaan badan ay qoraan oo afkoodii ah farcabeedna lagu qoray sidaas oo kale afka Hareeriga dadku ku hadla farcabeed ay adeegsadeen xataa Soomaali waqtiyadaas kama maqneen in lagu qoro maartay in la isku dayo in lagu qoro farcabeed إلى ما أنت وحنا هاينا دليل عد وحاجرة قصيدوين تضبط قصيدة أو تريي من الشيخ اللي يراه هذا الشيخ أويس أو غيريو ده يكون سجال بقول إيه سجال تسمعني وحواي قرني سجال طمنات آخر كيسي إن قصيدوين كاس وسميا لوضا إلى الآن والله هيا كونفورت كمارت أنت ريفرين كده تكون نول وهايان وحفظ سيهم وحون الشيخ وسميه سيدتك دين الله خاصة عقيدة إيو صلاة إيو وحي كلا حريرة أيا لهجدو دي وحو قوري لهجدة مارتي ما أفكا محمد هذا ماي طيب إن مركا طلابة سدحات دام سو قدمنا وحاواي سنة مركو أها كون 1920 إلى 22 أيا يوسف كندي معالي هذا عثمان يوسف كندي
ayaa farta ugu horeysay uu soo saaray far yacni hindisay aan dhihi karna cusub ayuu soo saaray ninkaas oo ah aabihii maaragtay yaasiin cusmaan kennedy. ninkaas farti uu soo saaray waa far maaragtay kala gogo-an oo u eg tahay sida tii maaragtay xabashada oo kale u kala gogo-an tahay aan laysku dardarayno cusub uu soo saaray. ninkaas fartiisii isla waqtigaas oo soo saaray waxaa kaloo jira nin kale la yiraahdo sheekh cabdiraxmaan sheekh nuur soo saaray isagana far noocaas shabahdo oo lagu magacaabo far gadabursi. marka fartan yacni ma helin yacni saas uma shaacin sida tii cusmaaniyadda oo lagu magacaabay tii uu soo saaray cusmaan yuusuf kennedy. waxay shacbiyad aada u heshay fartaas cusmaaniyadda lagu magacaabo waqtigii yacni israel halganka gobonnimo doonkii ayay heshay maadaama ay rabeen shanta soomaali laysku daro. waxa keliya soomaalida ugu weynna ay tahay maaragtay wax midaynayo waa afkiin waa inuu far yeeshaa ilaan soomaalida shanta meel ay kala jirtay shan af ay ku kala hadlaysay maaragtay talyaani ingiriis waxay adeegsan jireen qoraal ahaan talyaani ingiriis amxaari iyo kenya ama ingiriis wax lamid ah iyo faransiiska. marka kala afay ahaayeen qoraal ahaan laakiin isku afna way ku hadlaayeen qoraal ahaan. ayb markii la gaaray kontomeeyadiina waxaa soo baxay dhalinyaro maaragtay reer magaalada wax ku barteen inay iyagana ay fikradoodii ay keeneen fikradoodii ah in af latiinka lagu qoro. dhalinyaradaas marka waxaa kamid ahaa muuse galaal, shiro jaamac, cabdullaahi insaaniya, kadare iyo niman badan bay ahay. waxay soo saareen far maaragtay 10 nooc far oo laakiin latiinkii le ah maaragtay nin walba proposal keenay. waqtigii gobonnimadii 60kii balandhaha 61dii dowladdii waxay dareentay in fartaas loo baahan yahay. markaasa guddiyaa lasoo saaray oy maaragtay ka baaran degaan fartee la qaadanaya ilaa markaa waxaa loo ololeynaya 3 far cusmaaniya iyo luqa carabiya fartii ay ahayd iyo tii latiinka. marka qolaba miday u ololeynaysa iyadoo baaritaankii lagu jiro ayaa haddana 64tii xamar waxaa yimid maaragtay guddi unesco uu ka socdo oo andrewski uu ka mid ahaa maaragtay xubin ka ahaa guddigaas. marka waxaa la ogaaday in guddigan ay taageerayaan farta latiinka ah. marka baarlamaanka arrintii iyadoo loo wado ayaa suuqii gaartay far latiina la rabaa. marka banaanbaxaa la sameeyay dad badanaa banaanbax sameeyeen iyagoo maaragtay ku qaylinaya halkudhega ah latina ladina ayaa loo fasirtay yacni latin wixii lagu qoro diin la-aan waa. dowladdii markaa jirtay marka iska daciifay ahayd buuqay ka baqday malafkii marka hoosaa la geli waa lalaabay bogaas. waqtigii kacaankaa yimid kacaankoo seeftiisa banaanka taalla ayaa fartii meesha ku jirtay lasoo bixiyey. guddiyaa la magacaabay. guddigii waxay isku raaceen fartii latiinkii haba u badnaatay tii maaragtay shiro jaamac. marka 21 Oktoobar 1972 ayaa lagu dhawaaqay sidii ay fartii ku hirgashay. nin banaan baxay iyo nin kasoo horjeeda ma jira ilaa nin wasiir ah uu ka tegay wasaaradda waxbarashada ah. marka ma loo malaynaynin inay fartaa hirgelayso ay bedeli karta afafkan shisheeyaha ma loo malaynayn laakiin tallaabadaas tallaabo geesinimo ay ahayd oo ay waxtar weyn ay dalka u yeelatay. professor maxaa loo dooran waayey farta carabiga maadaama aan ahay dad muslim ah oo loo doortay farta latiinka ah? tamaam su-aal fiican waaye. waxaa jirta wax iska fudud waay sababta loo doortay. waxa waaye mid waa mid technica ah farsamo ah midna waa xag dhaqaale. mid technica markaan leenahay waxaa waaye far carbeedda indaan fiirino waxay leedahay 3 shaqal a i
iyo u af soomaaliguna waxaan ognahay wuxuu leeyahay saddexdaas iyo e iyo o oo af carbeedka aanan lahayn. marka haddii aan ku qorno far carbeedda mathalan ereyo oo soomaali waxaa jira oo isu eg laakiin o iyo u ay ku kala duwan yihiin. mithaal aan soo qaadno maxaan ku yidhaahdaa buur iyo boor haddaan soo qaadno labadoodii waxay ku kala duwan yihin o iyo u. carabi haddaa ku qortid laakiin mar walba buur leed qori kartaa, boor ma laha. marka seed ku ogaanaysaa in kelimadaas ay buur tahay ama boor tahay? contestigii iyo waxyaabo badana u baahnaanaysa, ma fududa. ma kastay mithaal kale waxaa jirta e baa ka maqan carabiga, soomaaligana e iyo e oo kala duwan ereyo leh e iyo e ayaa jira. mithaal kasoo qaad jeer markaad leedahay iyo jiir, laba xayawaanaan isu dhaweyn waay, laakiin carabi markaa qoraysid jiir leed qori kartaa, jeer ma jirta. alora seed ku ogaanaysaa waay mushkiladaas. marka waa xarakooyinkii waay. haddii la yidhaahdo xarakooyinaan aan ikhtiraacayna, ilaan carabiga shaqalada ma aha xaraf waxa waaye waa calaamado waay. marka xaraf oo soomaali aan lahayn carabiga ku jira mithalan za iyo aan shaqal ka dhigayo ma suuroobeys. diintan oo kusoo baranay carabiguna waa ka sayna, marka confusion a imaana. haddii la yidhaahdo calaamadaan sameynayna, taas waxay dadku kalifaysaa in makiinad khaas ah loo sameeyo soomaaliya, makiinado ma garatay oo xarfahaas leh. waxaa jirta ga baa jirta oo carabiga aan lahayn jiim ah. marka niman waxaa jira sida iiraan oo kale waxay sameeyeen 3 dhibacay u yaalaan. taas micnaheedu waxaa makiino khaas inaa u sameeyo 3 dhibac. marka waxyaabahaas technikada ah ayaa dad ku kalifay. laakiin latiinka haddaan aadno 5 vowel way leeyihin, a e i o o magastay 5 waa leeyihin. marka makiinadihiina waa yaalaan. markaas waqooyi iyo koonfurban waxaa la isticmaalayay ingiriis waqooyi, hoosna maaragtay talyaaniga la isticmaalaya. makiinadaha hoodana latiinay ahaayeen. marka la yiraahdo af latiinka hadii la isticmaalo wax la bedelayo ma laha technicamente. dhaqaale ahaana haddii la yiraahdo cusmaaniya lagu qoraa ama la yiraahdo af carabiga lagu qoraa, waa in warshad maartay la dalbadaa, far gaar ah loo sameeyo, dhaqaale u baahan tahay. UNESCO hadday markaas dad caawinto, laakiin mar walba dayactir la rabaa continue ah yaa ku siinayo waay. dawlad markaasna waxay ahayd aan waxba aan haysan. iiraan iyo waa dad maro hore maaragtay sacrifice soo maray oo haddana maaragtay ay maaragtay kasi permetro inay waxaas ay samaystaan dhibkaas. marka dhibaatadaas ayaa maaragtay loo fiirinayo, ma ahayn maaragtay wax diin ku xiran. midda kale far iyo diin shaqo iskuma leh, af iyo diin haa ma ay fahamtay. laakiin farta oo hadda aan isticmaalno latiinka ah, farta carabiga, farta yahuudi hibrowga ah, farta amxaariga, cusmaaniyada ma ay fahamtay. ruushka midka ay isticmaalaan kulligooda faroo dhan oo alfabet ah waxay ka yimaadeen far ay soo saareen nimankii feniqiyiintii hore la dhihi jiray ama fenici ayaa soo saareen. marka qolo walba si gaara ay usbil u baarisay maartay mooy hal meel ay ka wada timid. cusmaaniyada marka aan leenahay nafteeda xagga lay ka timid oo wax la beddelay waa. haddii cusmaaniya la qaadan lahaa laa diina lama dhihi lahaa maartay. marka diin shaqo kuma laha farta. haddii aad ku qortid maartay waa fiicnaan lahayd in af carbeed lagu qoro oo hadhow xataa yacni qur-aankii wax walba aad ku samaysay, laakiin confusion a imaan lahaa. qur-aanka si kale intaa u qortid, soomaaligana ma artay saa u qortid, wareera ka imaan lahayd. marka shaqo kuma laha. waxa waaye afka ayaa ugu muhiimsan. haddii af aad lumisid diintaadina markaas khataray ku jirtaa. laakiin far hadda soomaalidii ay baratay uma jeedo maaragtay ay diintooda ay ku lumiyaan. professor say ku suuro gashay maadaama afka soomaali uu ahaa af lagu hadla keligii oo u noqday af qoran?
sax su-aal fiican waayo. waa markii la go-aansaday in la qoro, waa tii markiiba ololo la aadayo oo dadkii fartii la barayo. intaa keliya marka kifaaya ma ahayn, waxaa loo baahday in madaaristii lagu dhigo maaragtay af soomaaliga, xafiisyadii lagu maamulo. afkiin wuxuu ahaa af oral lagu hadlu ahaa, waxaa ka maqnaa technical words, kalimaad yacni technica ah ayaa ka maqnaa. marka waxaa la sameeyey guddi erebixinaa la sameeyey, guddigaasoo ka kooban dad maaragtay culuum kala duwan ay yaqaanin, iyo xataa xafiisye iyo maaragtay wasaarado ayaa loo kala qeybiyey. hal yidhi qolo walba ha soo saarto erebixin ku saabsan yacni kaambadooda, fieldkoodii. marka erebixinaa lasoo saaray, khaasatan annaga jaamacadda aan markaa ka tirsanaa maaragtay ka tirsaneen, waa isku daynay qolo walba maaragtay maadadoodii inay usoo saaraan. erebixino badanaa lasoo saaray marka soomaalida aada loo dadaalay. erebixinadaasna waxay noqdeen 3 nooc. kow, waxaa dib loo maaragtay loo isticmaalay ereye miyi lagu isticmaali jiray oo magaalada aan laga garanayn, sababtoo ah waa isticmaalkoodii waa mid oo ku xiran miyiga ah, aan saas loo garanayn. marka kuyaa lasoo qaaday, kuwaasoo meel ay ka shabahaan micnahan cusub oo la rabo technicada. mithaal aan kasoo qaadno, waxaa soo qaadayna ereyga layli. layli annaga beledka ma kasaynin micnihiisu wuxuu yahay, laakiin miyiga wuxuu ku ahaa carbis, tababar, ama geela oo maaragtay neefka yar oo aan maaragtay la tababarayo oo kale oo ku xiran. waxaa micno ahaan lagu daray oo laga dhigay kii technicada ahaa yani exercise exercitation waa laga dhigay. waxaa kale ee lasoo qaatay xagal oo la yidhi angolo waay. asalkii horena wuxuu ahaa lowga laabatadiisa, hilibkan ama inta maaragtay laabatada ah, sidii maaragtay angolo waay. marka waxaa ka dhexeeya wax yaro maaragtay isu ekaan ayaa ka dhexeeya, oo sida la yidhaahdo linguistic maaragtay semantic extension ayaa la yidhi. raadraac ayaa la yidhi. raadraac waxaa waaye adoo miyiga markii xoolo ay dhumaan ama wax aad rabtid inaad heshid, raadkiisi aad raacaysid, aad raadinaysid. haddana waxaa loo bixiyey bibliografia. bibliografia waxaa la raadinayo. sidaas oo kale ayaa ereyo fara badan. kuwii hore arkaayikada ah, qadiimkii ahaa, ayaa haddana afkiina dibaa loo soo nooleeyay wixii laga tegay, isla markiina waxay buuxiyeen ereyadii technicada ahaa. qaarna waxaa la sameeyey fantasiya fiicanaa la sameeyey 2 erey oo micnahoodii kala duwan oo laisu geeyey iyo la lamaaniyey, haddana waxay soo saareen micno cusub ay soo saareen. mithaal ilays raac ayaa la yidhi. ilays waa iftiin, raac oo raacay. phototropismo yani biologia waxaa jira geedo ay raacaan, ilayska ay raacaan, sida maaragtay gabaldayaha oo kale iyo maaragtay ama wax oo eg ah. waxaa la sameeyey ereyo maaragtay kulbeeg. kul waa kuleelkii, beeg waa cabirayo kulbeeg. thermometer ayaa kulbeegaa loo bixiyey. hidasida. hidasida marka hidda waa naqaana wax dhaqan ah, wax sinji hore ah aywa. sidana waxaa uu sitaa waay. marka hidasidaha kan sinjigii hore sida waxaa waaye geniska oo chromosomeska ayaa loo bixiyay, and so on iyo wax lamid ah ciiddaa ka badan. qaabka saddexaad wuxuu ahaa markii la waayey erey soomaali shabaha ereyada technicada ah, oo haddana qaabkooduna universal ah, yani dadka adduunka dhan wada isticmaala, sida oxygen, hydrogen, ideology, maaragtay waxyaabahan philosophy ee adduunka dhan waa la isticmaala. yunaaniyiintii greegii horaa laga soo qaatay, marka looma baahnan in la tarjumo, laisku dhibo macnaas dadkii oo kale ayaa la sameeyey. markii sidaas la sameeyey, ereyadan lasoo aruuriyey wadajirkoodii waxay suurtageliyeen in af soomaaliya lagu cabiro ay yani fikrad kasta oo ah waxyaaba abstract ha ahaade ama dhaqanka soomaaliya dhanba uu qariib ka ahaa
ayaa maaragtay lagu cabiraya martii marka buugag badan la soo saaray xagga iskoolaadka ah la bilaabay in joornaaladii maaragtay la qoro af soomaali lagu qoro xataa fikrado oo siyaasad iyo waxyaaba soomaali lagu sheegi jirin in lagu qoraa la bilaabay marka sidaasaana maaragtay af soomaaligii xididaystay haddaan dhameeyay su-aashaan arrintan ku saabsan waxa waaye af soomaaliga af walba waa kora waa wax dinaamika nool waayo ereyo cusubna af walba waa ku darsamaan talyaanigan waxaad arkaysaa sanad 2 sano ka bacdiba vocabularygood wax lee lagu soo dara berke waxaa la keenaa wax cusub marka hadda aan leenahay computer iyo fax aan leenahay 20 sano 30 sano hadda ka hor ma jira marka yani wax cusub haddii lasoo saaro erey cusub waa imaan soomaaligani marka sidaas oo kale ereyo badanaa kusoo darsameen ereyana waa dhimanayaan waxaa lagu shabahi karaa lagu mathaali karaa af kastaba sida geed baxay geedka markuu baxay caleemo cusub soo saara caleemihii hoosena waa dhimanayaan wixii indisuusa wixii aan la isticmaaleyn waa baaba-een soomaaliya ereyo badan ay baaba-een jira aan ka sayn kuwa cusubna waa soo baxeen 200 sano hadda ka hor haddii raawigaasi iyo dad la keeni lahaa afka aan ku hadlayn hadday maqli lahayn af soomaali ma ay dhihi lahayn cusub ku jira professor maxay tahay faa'iidada la taaban karo oo fartan soo kordhiso ummadda Soomaaliyeed صح farsoomaal intaan lasoo saarin ka hor waxaa wax baran jiray ama wax akhrisan jiray ama wax qori jiray ninkii wax barto jaamacada ka soo baxa ama secondary marka intaasna waxaan dhihi karnaa waa 10 ama 20 boqolkiiba haddii aan ka yareenba ayaa wax taqaan marka mar walba waxaan arki jirnay oday ku soo ordayo warqad iyo akhri maartay qoraal far waxa ka saay ninkii wax bartay ninkii kala 0 ayuu ahaa ilaa seeraal wax yar ay dhigtaan mooye laakiin markii farta la qoray yani dad badan ayaa accessible waxay u noqdeen inay akhristaan inay maartay joornaal akhristaan buug akhristaan la wacyi geli cilmi bartaan marka masada oo dadka Soomaaliyeed waxay u suurtowday in ay wax barashadii u fududaato party markaan ka saarna iskuulada dadka banaanka ah watii hadda maaragtay jaraa'id meeqa jaraa'id xamar ka soo baxan aan aadno internetka 200 in ka badan ayaa maaragtay website ayaa Soomaaliya u badnaadeen marka intaas oo dhan waxa dadku u suurtagelisay inay wax bartaan inay Soomaalidu waxay u suurtagelisay inay isu maaragtay communication kooda afkooda isu gudbiyaan haddii nin walba afkiisa haysan lahaa kii faransiisa ku qori lahaa kii ingiriis isticmaalay ingiriis ku qori lahaa kii talyaani yani per script qoraal ahaan weligood isma afgaran lahayn misaal aan ka soo qaadno waagii oo lixdameeyadii dawladii ay jirtay dawladda centraalka xamar ay joogtay af talyaaniga ahaa lingua ufficiale baarlamaanka af talyaani lagu hadlaayo lagu qoraayo xafiisyada dhan waqooyi markii loo diro waraaq oo circular ah af talyaani ku qoran dadka af talyaani ma yaqaanin af ingiriis marka sotokar waxaa la gelin jiray miiska hoostiisa marka ma lahayn marka communication uma dhexaynin Somaliland markaas ay ahayd part of Somalia ahayd iyo koonfur yani af ahaan hal afay ku hadlayeen laakiin qoraal ahaanna labay kala ahaayeen marka taas waxay ahayd xijaabkaas waa maartay waa ka baxay meesha midda ardayda iskoolka hadaan soo noqon ayagana yani ardayda waxaan ku baran jirnay anaga af talyaani wax ku baran jirnay af carbeed af talyaani markaan waxaan ku baranaynaa way iska xifdin jirnay talyaaniga si perfect ah looma kasaynin waxyaaba qaarkood waa la kasaa waxyaaba qaarkood waa xifdin jirnay waxaan xasuusanayaa aniga intermediate meelahaas oo kale waxaan loo dhigay cellula cell aan loo dhigay saa u fahamnaan garan weyne saa weligeena may fahamnay marka macalinkeena talyaani waa si fiican uma majaalo sidii aan elementary aan kusoo baranay oo kale markaasaa mid wuxuu leeyahay waxaan bar indhaheen waa ninba sibuu u fasiray ala kulli xaal waxaan xasuusanahay arday isku kalaas aan ahayn gabdhaan xasuusanahay duruusta taariikhan loo dhigayo ama biology aan loo dhigayo xifdinaa sidii quraankii aan soo baranay gabaraan xasuusanahay isku kalaas aan nahay
darsiga si fiican ay u xifdisay uga soo baxday su-aalaa la weydiiyey oo wixii ayada ay sheegaysay kamid ah way ka jawaabay mid labaad mid saddexaad oo hinay gashay marka waxaa la yidhi goomay faato waa loo see maaragtay waxaa soo baratay maxay yihiin marka dhibaatadaasaan qabnay waa xifdin jirnay walaa nadri yani waxaan sheegin waxaan xusuusanahay ani waxaa nala bari jiray gabayadii talyaanigaa nala baranay poesia nala baray lalbra qui tendevi la pargoletta mano weligay waxay tahay ma aqaan pargoletta mano markaan itaaliya imidaan arkay inuu yahay baalka romaanka uu yahay marka waa xifdinaynay qaymuun nala lahaa yani afkaan waxaan le markaan maqalno waagaas waan xusuusanahay dhalinyarta aan ahayn cali xuseen iyo markaan raadiya aan ka maqno ay gabyaayaan kan waxaa waaye heesihii reer baadiyaha waa kii geelo waaye aan dhihi jirnay ma qiimeyn jirnay ma kasaynin laakiin markii la qoray af soomaaliga aan xusuusanahay teesaheyni waxaana lagu khasbay af soomaaliga qora na layiri anigu waxaan maaragtay teesahey wuxuu ahaa sugaanta af soomaaliga sida generooyinka intay u kala baxaan iyo waxaas markaasaan indhaha kala qaado markaasaan bilaabay inaan qiimeeyo suugaanta soomaalida ilaan qiimay leedahay waxaad marka identitydii soomaalida ayaa dib u heshay ilaan awal waxaan ku faanayna waxaan aan ahayn magastay marka waxaan u haysanay af qalaad aqoonta miyaa sidii uu yiri ninkii maaragtay abwaakii ahaa ayaan u haysanay laakiin af soomaaliga markii la dhigay ayaa waxaa dib loogu noqday in la qiimeeyo somali culture somali identitydaa la helay waxaa la aruuriyey suugaan iyo sheeko iyo taariikh waxay ahayn dhanaa lasoo aruuriyey awal juqraafiya anaga itaaliya nala baraayo may fahamtay recordo soomaali webiyadoodii iyo waxoodii maaragtay maan ogeyn intee gobol ay u kala baxaan runtii nalooma dhigeen laakiin itaaliya inta gobol ma ay yihiin marka yacni waxa waaye qolo walba waxay ku baraysaa wixii iyada wixeedii dhaqankeeda ku baraysaa marka waxaan dhihi karnaa farta wax lasoo koobi kara ma aha waxa waaye tan kale ardaydii waxaa u fududaatay marka af soomaali lagu qoro awal waxaan ka fikeri jirnay annaga yacni maadada nuxurkeeda iyo afka maadadaas lagu qoray hadda ardayga yacni saas uguma fikiro afku lagu qoray laakiin maadadii lagu ka fikerayo mana xifdinaya ilaa wax uu fahamsan yahay uu xifdinaa maartay marka abaartay markii laga reeba suugaanta waa wax adag af walbana saas waaye suugaanta iska adag tahay laakiin waxa waaye isagoo dareensan og ayuu baranayay cilmigii oo xambaarsan ma ahan wax maaragtay dameer waxa lagu raray oo kale ma ahan professor daan salawano buugta aad qortay buugta oo ay qabtay oo tirada badan kuwa isleedahay oo la tilmaami karaa buugta aan qoray laba yaan u kala bixin karnaa mid waxa waaye kuwo markaa soomaali aan joogo kuwa aan qoray ayaa maaragtay jira waxaa kamid ah astaamaha guud ee maansada soomaaliyeed yacni general characteristic of Somali poetry marka loo fiiriyo af ahaan suugaan ahaan af ahaan say u dhisan yihiin miisaanka iyo qaafiyadda iyo qaabkeeda waxooda ah walow ay soo saareen gaariya iyo bedaad kale ay soo saareen ayaan sii waday buug aan ka soo saaray waxaan kaloo aan maaragtay soomaali intaan jooga aan sameeyey waxay ahayd qaamuus yar oo talyaani af soomaali oo ardayda jaamacadda maaragtay dhigan jirtay wax weyn maaragtay u taray ayaan filayaa professor axmed cabdullaahi ayaan ila sameeyey waxaa kaloo aan sameeyey buug ku saabsan maaragtay taariikhda af soomaaliga iyo afafka bahda kushiitika marka buugaasna kuliyadda afafka ayaa maaragtay u ah textbook ahaan maadadaas anaa dhigi jiray markaan italian imidna marka waxaan dib aan u sameeyey buuggii oo intaas waa la bilaqaystay buugagtaas ma hayno buuggii ahaa taariikhda af soomaaliga iyo bahda kushiitig oo af talyaani ah la lingua somala il somalo e la lingua kushiitig ayaa maaragtay ayaan soo saaray waa buugga kan oo kamid ah buuggii 8aad oo cilmi baarista halkan aan sameynayni kamid ah waxaan soo saarnay maaragtay buuggan oo ah barashada af soomaaliga barashada af soomaaliga buuggan marka waxa uu wax u tarayaa maaragtay macalinka af soomaaliga bara ardayda xataa ardayda
yani basically labadaba waa u taraa. wuxuu wataa buuggan maxaan ku yidhaahdaa furihii layliyada ayuu wataa oo qofkii iyo macalinkii labadooda wax u taraayo. ayaan marka gacan igu siisay professoresa Narita Puglielli oo ah khabiirad oo aada u darastay Soomaaliga. waxaan qayb weyn ka qaatay buuggan qaamuuskan dictionario maaragtay italiano somalo oo muddo badan maaragtay aan wadnay iyo maaragtay iyo kuwa kale hadda aan wadno insha allah. Professor, ma jirta wax baaritaan ah oo jaamacada ay wax ka dhigtay ay ku sameyso afka iyo qoraalka farta Soomaaliga? Tamam. نعم waxa waaye waxaa jirta intaan jaamacadda xamar aan joognayba 1977 ayaa waxaan bilownay annagoo koox ah Talyaani iyo Soomaali isku jirno. ayaa waxaa jiray studio Soomaali barnaamij aan u bixinay aan sameynayno markaasoo qaamuus maaragtay waxaa la soo saaray Soomaali oo Talyaani ku tarjuman aan soo saarnay. walajeedada ma ahayn taas waxaan u sameynay waxaa waaye jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo af Talyaani lagu dhigayo. ardaydeena marka dhibaato waxay qabaan barashada af Talyaaniga, marka taas ayaa loo sameeyay. ma ahayn af Talyaaniga in lagu baahiyo keliya, walow Talyaaniga ay iska rabaan waxaas. marka waxaan barnaamijkaas oo researchka ah oo la yiraahdo studio Somali waxaan baaraynaa af Soomaaliga maxaan ku yiraahdaa suugaanta, dhaqanka, taariikhda, wax walba ayaan maartay soo aruurnay, cajaladaan soo aruurnay, waa baarnay. marka mar walbana waxaa lagu publicaarinayay maartay waxaan sameynay kollana oo la yiraahdo studio Somali 1 2 ilaa maanta uu joogo kii 12aad la soo saaray. marka mid walbana waxaan maartay lagu soo daabacay Soomaali yani qayb yar oo research ku saabsan phonology hal buug waay, morphology hal buug aan soo saarnay, midna maartay wax guud aan soo saarnay. yani waa isku jiraan. buugaygan kan oo 8aad wuxuu kamid yahay kii 8aad waay af Soomaaliga ah. kuwa dhaqanka ku jira, kuwa waxa ku jira maartay suugaanta ayaa ku jira. marka ilaa yawmana hada ma dhaafin qoladaasaan weli hadda aan la shaqeeya raw material la joogno oo islaantaas madax oo Puglielli la yiraahdo oo aad u jecel Soomaaliga iyo cilmigeeda weli ma zaalad maartay ay wado. marka cilmi baaris aad u badan. haddana dhawaan waxaan rajaynaynaa inaan soo saarno qaamuus oo monolingua ah, Soomaali lagu fasirayo. ilaa الآن waxaan haynaa maartay qaamuuskii Yaasiin iyo maartay Saalax qaamuus uu soo saaray iyo maartay dad tentative badan waa jiraan, laakiin anagu waxaan rabnaa inta dhan aan soo koobno kii Yaasiin 3 laabkiisi ama 4 laabkiisi ka 10,000 oo kale ah anagu 40 kun eray inaan maartay aan rabnaa inaan publish galayno 10 sano ka badan ayaan wadnaa qaamuuskaas. hawl yar ma aha marka weli waa ku jirnaa. Professor, farta afka Soomaaliga marka la fiiriyo kuwa ay isku bah yihiin iyo muddada ay qoran tahay ma isdhex karnaa heer fiican ay taagan tahay? aad iyo aad horaan af Soomaaliga horta Soomaalidu waxay nasiib u yeelatay waa dalkii 3aad Afrika oo leh hal af. Soomaali iyo Lesotho iyo Botswana oo laba dawladood yar waay ayaa hal af leh. inta kale dariskeena hadaan ka soo qaadnay Ethiopia 72 af lahjad ma afay leeyihiin. dhinaca west hadaan aadna Nigeria in ka badan 200 af ay Nigeria leedahay. af isma af garanayaan. afka kaliya isku garanaya af Ingiriis waay. marka afka rasmiga waa Ingiriisi waay. waxaad arkaysaa qoys aan arkay ilmaha aaba iyo hooye iyo odaygi af Ingiriisi ku hadlaya oo Nigerian ah. Soomaali marka alxamdulillah taas ma jirto, walow lahjada kala duwan la kala leeyahay. iyadoo taas jirtay ayaa haddana qoraal ahaan waa afka 3aad oo qoran ah in Afrika oo rasmi ah oo waxa la magac leh
sawaaxiliga iyo afka amxaariga kadib af soomaaliga ayaa lahaa africa oo dhan waa jiraan berberi iyo fara yaryaroo dad maaragtay oromada iyo ay isticmaalaan as a nation laakiin marka niman badan oo maaragtay maxaan ku yiraahdaa oo ajnabi ah ay aada u xiiseeyeen maaragtay af soomaaliga oo laga helay af soomaaliga waxyaaba oo linguistic in theory ahaan loo baranayo af soomaaliga oo verify gareynayo ayaa laga helay focuskaaskaba ha ahaadee sida ayaa waadaan oo afaf badan aan lahayn maaragtay marka waxaa lala yaabay af oo dad reer baadiye ah badow ah oo afkoodana saas very maaragtay complicated oo ah saas u dhisan complication yani waxaa waaye systematic aada u systematic waa lala yaabay marka waxaa waaye wax weynaa laga gaaray maaragtay publication fara badana laga sameeyey يعني الليفل المونديال آدي آدو مارتي أف سومالي هرفي عنو قاري أفافك لبحها سومالي أفرتمي أفواي وكشيت قليلة هذا أوروما سيدام عفار إنتاسا هركس ماني قاري أبصرة الولو لباري لفادية مارتي مقاري بروفيسور قدام بيستي سومالي دي بدو كنول قارهان عرورتا بدا كما هدلان أفك سوماليا وانا كنو مايا sida loo xalin kara arrintaas waa su-aal adag maaragtay waana muhiim ah runtii waxaan waan ujeednaa yani dibadda in af soomaaliga uu baaba-ay lalaga xoog badiyey waa runtaan waaye in mashaakilkana waxaa lagu xallin karaa xal ma hayno yani quatro aan ku dhaman karno laakiin laba shay ayay caawini lahayn solution yani ahaan mid waxa waaye in hooyada ay isku daydo in ilmaha guriga ay ku hadlaan af soomaali ay kula hadasho hooyooyin waxaa jira aqoontooda aada u yar oo ilmaha ay isku dayaan ayagoo aan ka siin af ingiriisiga xataa ilmaha af ingiriisiga ay la jijabinayaan ama ma ilmaha af ingiriisiga ku hadlayaan habartana af soomaaliga ku hadlayaan war guriga af soomaaliga lagu hadlaa in la yiraahdo lagu khasba guriga ayaa ah madrasada koowaad ilaa afaf adduunka dhan waxaa la yirahdaa afkii hooyaa barta marka qofta wax bartana afka hooyada marka waa inay qiimeysaa ani waxaan xasuusanahay sagaashameeyadii markii maaragtay rooma lasoo wada marayo islaam leh war wiilka af soomaali iga daawariya afka af talyaani baranayaan ma garatay marka waxaa waaye taasna waxaa waaye aqoon yari tan hooyada door weyn ay ka ciyaari kartaa iyadaana baabi'in karta iyadaana ilmihii maaragtay bari karta tan labaad in dugsiyada laysku dayo على الأقل كورس أو أف سومالي ولي سيدا نورث أوروبا وحاجر سويدن إيو معلمين سومالي أو ديغان أف سومالي أو ديغان labadaas marka hadday isbiirsadaan waxaa laga yaabaa yarkii maaragtay inuu recuperaaray wixii ka lumay ama maaragtay afkii uu fududaado iyo environment la sameeyo ciidaha iyo meel ay isugu imaadaan oo ilmihii la yiraahdo af Soomaaliga maaragtay looga hadlo dhaqankii maaragtay looga hadlo oo looga sheekeeyo la tuso qiimaha afkooda iyo dhaqankooda maaragtay anoo Soomaali joogna ayaa naga dhumay qiimihii afka iyo dhaqankii maaragtay laakiin fartiyaan la tustay ayagana saas oo kale in sidaas maaragtay la tuso ayaa muhiim ah sababtoo ah af Soomaaliga hadday lumiyaan ilmahaas يعني وحواي دين تودين خطر بجرتا أفكا أيا لقن كا يدين تاد ولو أف صومالي أنا هن أف عربيد أي مارت أف صومالي أف عربيد كان أي أسك أسليين ولا لايين يعني صلاة زكاة خيرك يعني وحواي أفكين وحنبارسين هاي أريف وربنا الدينات مارت يشكوين دينات لنا أي ما عندنا هدي لقت ترترو يعني دينتي وحواي يركي وحو iska weyneynaya in afkan maaragtay dad badow ah dagaal badan sida dadka qaarkood Soomaali ilmo waxaan aragnay leen Soomaali ma sheeganayno kuwii wax dilay xamar miyaa tahay Soomaali maaragtay asagoo marka ninkaas wiilkaas markuu weynaadana identity ma yeelana Ingiriisna ma noqona Soomaalina ma aha maaragtay laa hina walaa hunaaka dhacdu ka baxay marka xalka
waxaan u malaynaya oo lama helaya maaragtay optimaale, laakiin midkaas saddexdaas waxaan u malaynaya inay contribution ay ka qaadan lahaayeen. professor aad iyo aad baad umahadsantahay daawadayaal, barnaamijkeeni ku saabsanaa caawa taariikhda farta afka soomaaliga oo haween sabti kas igu soo dayin telefishinka universal iyo Roma wanaag intaa. barnaamijkan waxaa gacan iga siiyay cabdiraxmaan maxamed cabdidoon iyo anigu ah maxamed roberto iyo professor cabdalla cumar masuur. waxaan leenahay habeen wanaagsan. Masha